sidadiigu culustahay hadan ku cajabi waaye oo caashaqan ku bandhigay ku cuntami waaye lama cuna adduunyada waxaan calafku siinayne ku cugtaya nasiibka rajada caawin garan waaye. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا وناكسن ميل كستود كشوكتي الدنيا الدافئة هذا channel كوا ياسمنتينا channel dadku cusub tahay soo booqo hada ila joogtina aad ba ugu mahadsan tahay qoftan ku soo hortaagana waa yaasminteena hal iyo labo ayaan rabaa inaan tuurtuuro waxaan ka hadlayaa dulmiga qabyaalada Soomaalida iyo marba dhan orodkooda waxaa jirtay in fanaanadeeni Safiya Tusmo la gubay meheradeedii oo aan ka soo hadlay sidii caadada ahayd aan uga soo hadli jiray markaan arko wax dhibaato ku dhex jira ama ku dhacay ama dulmiya waxa soo dhana aan ka soo hadlay waxaan arkay reerkii reer aftigayo odaha soo jabiyay qaar aytamaya qaar habaartamaya qaar walba leh horta waxaan idin sheegayaa anu gabar Soomaaliyeed baan ahay reer Soomaaliyeedna nacaybkiisu iguma jiro sida aan anigu isu aqaan inta nadiiftii ii taqaano qofka kaliya ka hufan baan ahay waxa aad isku wada haysataan Soomaalida dhibaatada kaliya ay qabto waxa weeyaan waxaad ka hadashaa marka aniga wax la igu sameeynayo oo aniga dulmi la igu sameeynayo kaliya ka hadal laakiin markaan anigu dulmi sameeynayo ha iga hadlin ta ina rugtay ee ina dhamaysay waa taa yaabaheen nagu kala wastay dulmigayga oo kaliya ka hadal aniga la igu sameeynayo mar walba aniga wax wanaagsan iga sheeg laakiin haddii iga soo horjeesatid aniga waan ku caayayaa haddii aad aniga dulmiga aan sameeynayo aad sheegtid aniga waa ku caayayaa qabyaaladaysa tahay dad baad isku diraysaa ruufiyaanad baa tahay laakiin marka aniga dulmi leegeysto aad aniga iga hadlaysid alla gabadhu geesisana alla gabadhu hadal cadda alla gabadhu xaq yaqaansana waata ina baabisay taas hadaba anigu sama ahay naagin ka yeelsan wada ka yeelmaayo anigu laba wajiile ma ihi munaafiq ma ihi dadkana qayb uma sacabtumo horaan ku sheego walaalkay haduu yahay oo dhiiqo ku dhex jiro sida xaq u yahay baan uga hadlayaa aniga waxba igama gelin waxa la yiri walaalka maraga ku fur magtana la bixi warada ma garateen horta waa midee waxaan idin sheegayaa inta ay Soomaali ka imanayso reer jeclaysiga oo ay xaq garab istaagayso halkaas taagnaanaysan meesha gurigiin ku baay ayaa dhex taagnaanaysan dhiiqadana waad ku jiraysaan wax idin kordha wali ma aragteen dhowr iyo 30 sano is xaqxaganaysan is cunaysaan oo is dilaysaan bal wax idin kordha ma aragteen inaba Soomaali oo dhan isku duuban aniga reerihiina yaryare aad u kala xurguf leedihiin aad u kala baxbaxdeen aniga waxba igama gelin marba kii la dulmiyaan la jira marba kala dulminayo ayuun baan sayrkiisa ahay anigu qofka dulmiga lagu sameeynayo ayaan sayrkiisa ahay gabadhaas wixii dhibaato ku dhacay waynu u wada joognaa waynu wada ognahay cidii doonta ha ku samayso iyadu farta dad bay ku fiiqda khaladna kuma lihi haddaan idhaahdo muuso dabkii Allah sacaanood ku hurisay ayaa lagu kala dhinta dab kale awdal ha ka hurin haddaan idhaahdo taas waa xaq dambi maaha ceebna ma aha bilaayo waxaa la yiri hor la qabtay leedahay daba la qabto male garhoy ka joog sadal qarmaan gaaban arkayo wali dakhradeeda ku mashquulsan dakhradeeda ma ku dhawaan Allah dakhradeeda sida aan u jecelahay haddaad ogaan lahayd dakhradeeda walaaynaadan malayn karin maba moodayn inay wali qaar culays ku hayaan kulli maangaabkoo dhan ayaa si kale u arka qofku hadduu maangaab yahay si kale ayuu arkaayo wuxuu ku wareegalaysta rag iyo dumarba waan arkay dad ugu caayaya habartan jarjaran habartan go'go'anta uuni gura laakiin wallahi billahi tallahi inta in leegneen gaarin because of waan ku faana waan jecelahay wajigayga iyo jirkaygana waxa baan u jecelahay sayrka dakharada ku yaalin
wiilashii filmaanta la duubi jiray baa garanaya waa xanaaqi jiray dee sayrkani ka duuban sayrkana laga duubaan oran jiray because dakharadan waa qurux waana gift ilaahay i siiyey waa qadar ilaahay ii keenay waana ku qanacsanay idinku abuurtiini baad ku qanci weydeen anigu laakiin qadarta ilaahay ii keenay xitaa ku qanacsanahay waxaan oranayaa oo keliya ummadda Soomaaliyeed walaana idin kala jeclayn runta markaan ka hadlo waxaad tihiin qalbigayga iyo wadnahayga inta saliimka ka ah xumaanta iyo qabyaaladda iyo reerka iyo inta reerka iga dhex arkaysa iyo inta aan reerka iga dhex arkayn inta saliimka ka ah qabyaaladda iyo xumaanta in reerka iga dhex arkayn intaas isku aragti baanu nahay laakiin inta reerka iga dhex arkaysa ee qabyaaladda iyo necab waxaan idin leeyahay weli ma idin bogsan wada xanuunsanaysaan ilaahayna caafimaad ayaan idinka baryayaa dulmi waa dulmi xaqna waa xaq xaquna mur hadduu ka qaraariya waa lagu dhiishadaa naagtaan aad aragtaan naag waxba u joojinaysa maaha qofkii wax dulmo waan ka hadlayaa qofkii dulmi ku dhaco waan garab taaganahay reerkii la dulmiyo waan garab taaganahay kii wax dulmiyana waa ku qaylinayaa maxaa siga bedeli kartaa waxba igama bedeli kartid haddaad leedahay igu soo raac qabyaaladeyda iyo qurunkayga iyo waxa aan anigu walaaqanayo xabad kama bedeli kartid aniga meesha aan u socdo iyo hadafkayga ayaan ka hadlayaa hal adaygaasaan leeyahay geesinimada ayaa ku dhacaa qaar badan oo xirguf dhow wajiyada iga dad baan arkay waxba ha iga dadbina walaan reer uga jeclay jirin laakiin dulmigaa nacabahay war waad salaamayaa oo yasmintiin oo kale laa aragtay laaga moogta caadi iska dhiga isoo gaadha